ربك عايشة يأروك عفشم وياني ولا عافمات كما فردي جودانو عينيوك هرتيجي أو مرة بعد صار قاصدي يبشر بعيد يهان علي إبراهيم أو أود الصوت بسط الدجال فرح السياق بني كيمو سجودان لمسوا قبل لها waxaa la yaab leh haddii xabad aad ka soo siisaan waxaa la yaab leh awal waana la celiyey cidda dambe oo joojin doonta la yaab leh wallaahi waxay tagi doontaa meel fog bay tagi doontaa war diyaar ma u nahay waa ciidankii reer biciidyahan oo mar labaad soo ruqaansaday og iyo caynabo oo goor dhow la isku wareysanayo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توعنا ونكسن لما جماهير تجوب كستا يجور كستا شوكتان وبرنامج كني افتيمي تحقيقويك أو إنما تسكدوا التاجنو نماكي هارتي أو مر لبعض صور قاصدي يدقال سانسان علادة موسى جودان إن دوّد واحد وجيدين إنه مر بمن قارت كسر ديبني حتى صوص عدا الدين ما يبان قاضية إذا هان قاضية رمضان هذا كوب بيجيا ما نشمع إلا واحد عن إلهي أقون ومجرم يرجع حسدا قرية مورجا فرددا شمعياش إذا يا رمضان هذا يدك السوق جاري ترين عمقني ترين كلمة هذا هوية ترو بري نماكي هارتي قاعد ماضي وابرتين غير كرير بعيدي عنها ciidankii ugu soo horeeyay ee soo galay og waxay noqdeen ciidankii reer biciidyahan horena waa u joogeen maantana 37 iyo suug qoriga ugu yari waa shilkan kuuri shilka afar dhuumooda beenimaka cali ibraahim waxay taagan yihiin annaga iyo cabaad weyn waa kala baxaynaa annaga iyo muuse juudaan iyo qotidu wato inaanu kala baxna mooyaane tala kale oo anaga meel noo taala maxaa horta maalintan xaawa aroosay xisaabtaba keenay maalintan xaawa aroosay iyo maxaa xisaabtaba keenay xoolaad ugu leedahay maxaa maalin walba keenay og ba halka soo maraya muuse halka soo socda waxa weeye maxaa taa gurigiinu baay maalin walba maxaa lagu hajabaya oo buuqa iyo hadalka iyo wareerkaba keenay toos baanu foodo isu dareynaa reer biciidyahan waa niman aan gaban oo aan wadnahoodu galow aqoon waxay bataagan waraana dhaartay oo ma anaga noo deysaan bal anaga iyo ma isku kaayideysaan muuse juudaan iyo afartan uu wato maad cali ibraahim reer biciidyahan anaga reer biciidyahan ma noo deysaan anagu dhacay warban u kaadi war ilaa ma aragnay nimanka reer biciidyahan oo hubkoodii iyo saanadoodii inta soo dhameystirtay waa soo qalab qaateen reerkaas eegay isu kaayar daawada bay taagan yihiin reerii hartina eegay maalmahan waxaad maqlayseen Cumar Maxamuud waa baxay warsigeli baan ka tusay nimanka ma jarteen baa gooyay nimanku sanqadh bay maqleen wixii bay run moodeen wuxuu yiri sidii hore moodo hal lagu dilo sidii hore mood oo hal lagu dilo sajuudaan 8 bilood baan waxaanu ka dhaadhicinaynay dhulbaanta inuu harti yahay ilaa aanu dhag iyo dhaban fujino naf iyo maal wuxuu haystay aanu ka furanayna ma aaminin oo ma qaadan waxaanu u sheegaynay balada eegay maantana eegay wax badan baa garaadada iyo isimada iyo uqaasha hartinahayn u kaadiya halka ha dhaafina maanta garaadna la dhageysan maayo ugaas la dhageysan maayo boqorna laga ka qaban maayo islaamna warkiisa badaa muuse juudaano eegay bootadaada iyo faqfaqdaada iyo ciyaalkan aad soo ururinaysid oo maalinba meel soo taagaysid wax badan baanu lahay wariyaarahay naamay u kaadiya sheedaanka iska naara war jamaahir ay jooga niman cartamaya oo kun tiknika wata oo 25 kun oo wiil ah oo waxa weeye aqoon yahana oo waxa weeye academy dhamaantood waa wada academy muuse juudaana wuxuu wataa wixii aanu qabanay waa Faysal Cabdi Bootano miiran buu wataa baladeegi meeshana waxa maraya 20 jiro birta calaashada baladeegi maanta marka muuse juudaano wixii aad dalabatay waanu ku haynaa horta intaan ciidanka iyo hubka iyo saanada iyo meesha waxa maraya intaan u galin waxaan rabaa inaan isdul taago meeshii Muqdisho ahayd nimankii hartay ee Muqdisho joogay ee xildhibaan lahaa ee wasiir lahaa warnimay xog baan soo helay eegay iga yaabisay markii aan eegay oo aan rogrogay oo ableeyay oo aan falanqeeyay waxa iga soo baxday lama arag iyo lama maqal iyo lagama sheekeeyaan war ma idin la tahay hartiga Muqdisho jooga
dowladdii dhexe ee Soomaaliya iyo caasimadda joogay inay afduuban yihiin war ma idinla tahay nimankii guryaha loogu daato war ma idinla tahay nimankii kidnap lagu haysto war ma idinla tahay meeshan aanu haysan in xildhibaan inaga jiraan oo wasiirre inaga jiraan maalin dhaweeto waa maagayay dayga baay niman baan bacanaananayay bidaan iyo tim caday baan maagay show nimanka Muqdisho jooga ninka liyaada Xasan Munaafaq wuxuu u samaystay niman madaxa u duubta waaba niman la haystaba gebigooduba aan kelmad oran karin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ruuxan daawaday muuqaal ninkii Cali Xoosh ahaa horgalka Cali Xoosh horgalba ma hadee horgal ma aha war astaghfirullah horgal baan war horgal ma aha nimanku waa maxaabiis sida Xamse maxbuus u yahay bay nimankani maxaabiis u yihiin Cali Xoosh baa hadlay wuleeyahay Puntland ma maqnaan ka dho waxaana ku maqnaan ka dhin ma maqnaan ka dho waxa fadhiya meesha bidaan timacade wasiir ilkajiir nin general ahaayo ilkajiir loola jiray aanu ninka hadda waxba u aqaanay gangsteray baladeegi ilkajiir war adigu xildhibaanadii harti iyo wasiiradii harti iyo wasiir dawlayaashii iyo wasiir ku-xigeenadii intuba meesha fadhiyaan ninkaasi labada kaliyood in la hayaad moodaa Cali Xoosh labada kaliyood eegi muuqaalkii baan daawado waa shaki waxaan wareer maxaa khaldan baadhis baan sameeyay waxaan ba ogaaday nimankan inay maxaabiisiinba ninkii Cali Salabaane ee xildhibaanka ahaa ee baarlamaanka ka dhex istaagi jiray in hartiyo lama jarteen oo dhigi jiray dib miyaa u aragteen meel uu jaari cirib dhigay miyaa haysan xildhibaan sayare ninkii loo rajiray ee Cumar Maxamuud hadalka cadda meel uu jaani cirib dhigay miyaad haysan war xildhibaanada iyo wasiirada Muqdisho jooga ee dowladda Xasan Munaafaq ka tirsan ee damuuqushaas la shaqaysta war nimankaas waa maxaabiis badbaaday u baahan yihiin nimanka tigidha loo diro nimanka ciidan loo diro waxa weey Axmed Madoobe iyo Dani iyo Cagjarow war ciidan nimanka u diro meesha ka soo saaray nimanku afduuban yihiin waa yaabana ilaahay baa idinku dhaashay bilka dhageyst wuxuu ku hadlayo fiqi buu si leefleefaya fiqi hadda wuxuu u socdaa hadda wuxuu u socdaa fiqi galmudug buu fiqi hadda u socdaa fiqi waa nin fiican tuutu qaata fiqi baa wuxuu yiri Xasan waa sidan dawladda waaba nin la soo dhirbaaxay baan si waa ilya baal baan ugu yaraan dhag iyo dhaban weeye ila dhageyst Puntland ma maqnaan ka dho dawladana waamadeeda iyo taladeedu haday wax tabanayso Puntland miiska imaanaysa wada hadal bay ku imaanaysa ma hudhay hays hadlayn dadkaani Soomaaliyeed ma kala maqnaan karaan qofkii wax ka bixiyay siyaasigii wax ka bixiya isaga hungoobay dib u heshiisiin iyo xalin khilaafaad waa saas oo cad يعني نك هذا ولي كلب كده أنا قا سكاك قبضي إلهي ما كنا نقول إن هذا دولة ده حسن وفي عنته هاي حسن ونفع وطول صباح نقول أنت عارف إن ده أنا وارتي حكوا شراء كي منافقة هاي عوي أبتي الله هاي بري كرات عايش ريدير إسوسار كحيانك كاسا دحفديا انت كلا وهرتي waa xildhibaanadii waa wasiiradii waa wasiir ku-xigeenadii waa wasiir dawli waa ilaahay ka jir ba fadhiyaan waxa halka ka dhacay sanadka dhan halka musiibadu ka dhacaysay ee waxa weeye Muuse Juudaan iyo Xasan Munaafaq madaafiicdeena la dhacayeen oo la isku keentigay oo dadkeeni la leeyay wali wasiir miyaad aragteen ka hadlaya wasiir Puntland ka soo jeeda ama harti ka soo jeeda hadlaya miyaad aragteen xalay war maxaa khaldan ورياره المحاخلدن وروا محيارجن دوفر شو نوخوا محابيس با هدو حلف يا فيقي وانا في عن كلمه دك بو سودا وانا كددكيسي waxaweye loogu laynayo Xasan Munaafaq de kan xule saacada ii sheeg Cabdikarim Guuleed baa iibsaday say biyaan iyo odaygii Munaafaq ahaa ee Cabdi Qaybdiid baa iibsaday dadkii habargeed shacabka habargeed baa guriga laga qaxinayo isagu leefleefay nabad buu socdaa galmudug buu nabad ka soo baxalkeenaya waxa soo xasinay waa nin fiican wasiirka wasaaradda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waan filayo wasiirku inuu aadi doono hadeer isagoo muxuu ahaa tan wareejiyay oo galmudug inuu aadi doono anigu
waxaan ku shaqaynayaa siyaasadda dowladda iyo qorshaha iyo higsiga iyo himilada wasaaradda halgan baa lagu jiraa wasiir fiqina qayb buu ka ahaa ilka jiiroo la xusay oo wasiirkayga ahaa oo oday ahaa ku-xigeen baan u ahaa nin oday khiyaar oo sharaf badan buu ahaa waa ku faraxsanahay maanta inuu xildhibaanadeenni iyo wasiir sanadko dhan baan yaabanaa xalay warheedha xamse maxbuus hadduu waxba garan waayey war wasiiradii mee war xildhibaanadii mee war wasiir dowlayaashii mee war wasiir ku-xigeenadii mee war dadkii meesha noo joogay mee show nimanku waaba niman la haystaba waa niman la isu madoobeeyo habeenkii nimankii dhulbahante abtiyada baa beri hadlayo xildhibaanadii joogay muqdisho watay beri wax dhaqdhaqaaq waatii hoteelka loogu daatay hoteelka waatii loogu daatay baan ku oo dhowr dhulbahanta lagaga haarufiyey dib miyaad u maqasheen cidda dhulbahanta beri muqdisho xildhibaanadii buuqi habeen madow hotel loogu daatay oo ku shiraya gam harti badan baa halka lagu laayay dasha ku jiray bajirteen baa ku jiray dhulbahantaas ugu badnaa nimankan aan leenahay maxaa nimanka haysta waa niman la isu madoobeeyo waa niman xasan ciidan u sameystay calooshooda shaqaystayaal wixii xagga inaga sii wixii daanta wixii jira dad ha qaado biir daanta wixii jira dad ha qaado wixii fiil qabiyaala jira eegay dad ha qaado dib ha ugu xisaabtamina inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un war waxa waa naxay baaristii markaan daba galay guntiga gabagabada xusoo gaday nimankan la haystayaal yihiin la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wa yaaban ninkaas inuu ooyaya moosa hadda dawladda anigu teedan ku shaqeynayaayo wasaaradda arrimaheedan ku shaqeynayaayo dani waxa weeye dani waa stupid buntland ma maqnaan kadho waxayse ku maqnaan kadhin de ma maqnaan kadho buu yiri anaas ku soo gabagabayay daanta wixii jira dad ha qaadan waxaan soo noqonay nimanka reer biciidyahan iyo hartigii oo raac u soo degay raac haddayba gun iyo caad la baxday wixii hore waa u daaya hadday gun iyo caad la baxday nimankii harti haddeere mar labaad bay soo ruqaansanayaanba nimankan abaad weyntu waxa weystaan meesha laga dararay inkastoo dhulbahanta isku filan yahay maanta cidna aan u baahnay laakiin qorihii baanu soo safaysanayna hub cusub oo horna noo soo degay iyo qalabyaanu soo rakay reer biciidyahankii ugu horeeyayna waa kuwan waxaa la yaab leh haddii xabad aad ka soo siisaan waxaa la yaab leh awal waa nala celiyey cidda dambe oo na joojin doontaa la yaab leh waxaa hub meesha maraya eegay ee suuqa iyo tedhisabanka lugaha saa u taagaya eegay meel kale uma socdaan oog bay ku xoroonayaan maan kuwi horaan idinku sheegno waxaan ku dhiri wareerde burcayaan laga qaxin war burcayaan laga qaxin oo hanagu kalifin baa kuri muuse judaanow adiga iyo ganya shaaximan iyo odaygii saleebaan gaal abilahab inaanu gurigii Morgan sida uga soo qaadno hanagu kalifina laakiin waan la kalifteen eegay waan la kalifteen waa soo soconaaye meeshaad idinku waxa weeye jamhuuriyadda badida weynay meeshii lagu xafuujin lahaa hadda si diyaarso wallaahi waxay tagi doontaa meel fog bay tagi doontaa war diyaar ma unahay war difaaciisi diyaar ma unahay war soo joogi mayno allahu akbar cadowgu ha jabo si ha noolaato cadowgu ha jabo si ha noolaato waa jifi weeye reer biciidyahan baladeegi waa jifi kamid maxamed harti hoos saddex laab afar laab ba sii degeen eegay waxaad muuse juudaan oo dalbanaysid wuxuu hawlada waa bari baa oran jiray waxaad naga dalbaateen waad naga helaysaan muuse juudaan waxaad raadinaysay cimri dheersasho nimanka areeyaha iyo garxajis inaad kursiga waxa weeye kursiga ugu sii deganaato dagaal baan gelaya laakiin waaba soo gabagabaynaynaba eegay nimanka garxajisna say kursiga markaba degdeg ugu fuulaan oo intooda yar nimanka ay door degan yihiin ay maamulaan ama ay maamul ku dhawaaqaanba waa soo gabagabaynaynaa cimri dheer dambe kuma hadhin muuse juudaanow eegay sidaa waxa weeye mujaahidkaas uu leeyahay qacbaanu sugaynaa waa naga dhaba oo naga asal ah oo naga run ah oo wallaahi yabaan ku
waxaanu sugaynay awal xabad inaad soo ridaan baanu sugaynay Soomaa inaad soo ridaan hadda dhaqdhaqaaq baanu rabnaa dhaqdhaqaaq meelaha wax marmaraya iyo hadal dambe inuu idinka yeero indhaweed ma naqshay soo mikrofon haysta oo yeesho dhurbaax jiro si abarati si abaraan xulmay mujaahidiinta maalintii qaaxo dawladda Soomaaliya u dhiqlay meeday dib yaa u maqasheen eegay gunta iyo gabagabadana waa guriga Morgan kale oo celinayay ma jiraan guriga Morgan in aanu galno aanu madaxa kaaga soo qabano eegay oo ku soo qabano adiga iyo Faysal Cabdi Bootaan iyo odagan Abi Lahab Salabaan gaar iyo geeya shaaxminina ka inaanu meel idinku wadaldalno intaas baa noo harsan wax kale oo noo haray ma jiraan baladeegay ciidanku waa diyaar dhaqdhaqaaq baan sugaynaa dhaqdhaqaaq war barnaamijka si share garay mid kale channelka inta subscribe-ka iyo inta aan subscribe-ka waxa badan inta aan subscribe-ka yahay daawatay inta daawata iska dhaaqda war channelka subscribe saar oo like ku boo barnaamijka aragtidaana xaq hoose ugu rab khayr iyo baraka hadir jeenay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh